ayaa waxaa ku soo duulay ciidan daraawiish bahgiri ah oo ogaadeen ah. bacdi sayidkaa soo diray wuxuuna go'aan ku soo siiyey in nimankaas dhulbahante la dhaco lana laayo. wuxuu yidhi Caridox, Allahu akbar, eedanku waa ka afiya been. ashahaaday gaalkuba se waa ehelu naarkii. ubaweysa waan kugu arkaa agab salaadeed. eedaanna waan kaa maqlaa oogta waa beriid. ashahaada beenlow maxaa aha kugu aasan. hadduu uurka kaa jiro wardigu kaama orodeen. abtiyaalada iyo funnice ururkii reer khayre. arbow jaamac iyo aadan iyo oogle kaa tage. waxaan uubateeyaba tolkay ooda soo jebi. axmaq yahow kuwaad ku amsanay idinka ma ahayn. waa uurgaslow aadan dhagax odayadii liye. abtirsiimada waxay gashaa eyda reer xamare ayuu yidhi isagoo weli sii wada Caridox gabaygii. amarkeena ayuu yidhi ku daray oo gabayga xagga dambe ka soo raacay. gabaygu inta waa ka dheeryahay. arxa niman u gelahaynin oo ina ogaadeen aabowda uunbay hayaan kii arsaa ilay. kelmadaa dambe ayuu marka aad uga fiicanaanay. haddana sayidkiina wuxuu yidhi aw yuusufow erayar baan kuu erginayahay. hadduu eebbahay kuu idmaad ururta weyn gaadho ikhwaanow adkee xaajadan kuga ammaanaysay. ku ansixi halkii aan ku idhi aadna ugu fiirso. guraasiyo iljeex iyo u sheeg nimanka iidoora. ogaadeen haddaan ahay dad wou amar koreeyahay. waa ubaxa baalkaan iyo awrta haashime. abtirsiimaday waxay gashaa odayo waaweyn. halkaan uga arooraana waa odayga daarood. rasuulkii udgoonaana waa ina adeerkay ibraahim rashiid aabbahay odaygii weeyaan. asaxaabihii oo dhan baan ehel wadaagnaay. aakhiro albaabada janaan agabsanayaaye. nin amxaara mooye intii idag adduun joogta. islaameedku wuxuu ii yaqaan ehelo khayrkii. adiguna abbaanow midgaan uraya soo mihid. warsuukii ilaahay nacay eyga qalay mihid buu yidhi. labada nin ninna cay hufan buu ku caysamay, ninna cay xun buu ku caysamay. idinba waa kala arkaysaa. kow markaa kabacdi ayaa waxaa dhacday col dhulbahanta ah oo iska degan meesha loo yaqaano balliday ayaa waxaa ku soo duulay ciidan daraawiish ah iyo ciidan bahgiri ah oo ogaadeen ah. bacdi sayidkaa soo diray wuxuuna go'aan ku soo siiyey in nimankaas dhulbahante la dhaco lana laayo. ile fallaagay noqdeene. markii la galay reerihii ayaa bacdina nimankii xoolihiina lagala haray iyagiina wax la dilay iyo wax firdhaday bay u qaybsameen oo keliya. ma ay yeelan dhaawac. Caridox aadan oo colkaa isagu halkaa deganaa ka mid ahaa horena ay yani sayidka weligoodba isu warmayn jireen. wuxuu tirshay gabaygan uu leeyahay shuunkii harti oo wada fadhiya shaaxin goleheed oo uu shidkooduna dhan yahay sayba iyo wiilba oo xamar shakaalka ugu jiro sulla yarow mayras oo sama amaadhinka yari lagiyo shii gaaro. sanfaley bahgeri waa wixii sheebo weeraray. cayuun shacabka wiilkii lahaa shaah ka tarinaayo. waa yeelna xeeb uga shir tegey mana shir shooruy. isagaan shaarublow reer isaaq shucub aan reebeen. samar ay tuntaan iyo haween shuqulkii mooyaan. sarba idinma daareen haddaa shalayna dhaaftaan. daran idin shideeyeenba waa naga shisheeyeen. sheekadayda waad haysataan aniga shaywaan. shallahaad wadaadka u sideen sagax ma siiseen ayuu yidhi Caridox aadan. Caridox aadan markuu intaa yidhi sayidkiina waa loo geeyey oo gabaygaasu tiriya Caridox baa la yidhi. isaguna gabay ayuu ka daba diray uu leeyahay wiil yow shareecadu midkay shuugtay baa tahay. sidiiyaho waxaa lagugu nacay sheeka xumadii. kadfadhiyadu waa waxaad u tidhi shuun saraan ahay. adaan shaarku kaa soo bahayn saraf ma laacdeen. iidoorka kaa sheexayana uma sharaadeen. soomaali waa midaan shibiyo midaan shideeyahay. adiguna si shooraa ku tahay sharadda maantahay. shiil baan wadnaha kuugu ridi shuuqda weligeed. inkastoo shareer lagu wadiyo shucubadii hawd. saankaanka buuraha haddii sheedda laga saaro. sifo ma laha geelaa nin lihi ila shaqaynayn. maxaa haatan laga sheelayaa saadan baan shabin ayuu yidhi darwiiskiina.